السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيارتي ذا قيمة يقدرين تمودنو وهبني مولا ما موسى يحوزك دلشاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكسو وريكتي كن إيا شنبقل وسندود هذا بمناسبة لغو ما موسى أيا وحا كمدا إذا ما أنت لغو ما موسى دوكسيغو وهديغا أغونتي مرمارسا الكاسيو أي بوغدين hogaaminta dhexe gobolka City oo horkacaya gudoomiyaha gobolka City mudane Ibrahim Xuseen Khayre iyo sidoo kale wasiirka xafiiska dooxooyinka waxaana halkaasi ay ku booqdeen culimada diinka ku xireysan oo ay si wada jir ugu maamuuseen xuska dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam oga dhigo ilaahu meesha rajaynin meel ka sarreys Allah na gaarsi ha maanta dawladdeena noo imato intanoo islaan boqolkiiba boqol ilaahay baan wax xamdiyeen sidoo kale munaasabadan xuska dhalashada Nabi Maxamed waxa laga maamuusay magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka halkaasi oo isugu soo baxeen kumanaan shacab oo munaasabadaasi dhalashada Nabi Maxamed u muujinaya dareen farxadeed iyagoo sidoo kalena culimada diinka ku dhaqan caasimadda deegaanka ay horkacayeen isla markaasina lagu maamuusay wadooyinka iyagoo ay sitaan shacabku ay wateen qaar kamid ah fardo shacabka ayaa waxa ka muuqatay dareen farxadeed isla markaasina waxa caasimadda deegaanka si ballaaran loogu maamuusay xuska dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyadoo gabagabadii munaasabadaasina lagu soo afmeeray masjidka weyn ee ku yaala magaalada Jigjiga oo halkaas culimadu ay ka jeedisay taariikhda nabiga iyo siirada waana markii horeysay oo munaasabada noocan oo kale aad u qurux badan lagu maamuuso caasimadda deegaanka magaalada Jigjiga guudaan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo waxaan ku soo afmeeraynaa waxa maanta heshiis kala duwan lagu saxay magaalada Jigjiga hay'adda Children Investment Foundation oo kaashanaysa UNDP oo taasi oo qodayso 20 ceel oo dhaadheer iyo biyo-gelin dhammaystiran kaasoo ay ku baxayso lacag ka badan 6 milyan oo dollar oo u dhiganta ku dhawaad 1 bilyan oo beer mashruucan ayaa waxa ka faa'iideysan doona dad gaadhaya ilaa iyo 150,000 oo qof waxaana maanta la bilaabay qodaalka 7 ceel oo ugu horeysa oo lagu xoojin doono biyaha magaalada Jigjiga iyadoo ceelashaasina laga qodayo agaarka Doobale ee santarka Daadi oo aan ka fogeyn ceelashii horey magaalada Jigjiga uga cabi jirtay ceelashan ayaa la filayaa inay soo kordhiyaan biyo-gelin gaadhaysa ilaa iyo 4,500 oo mitir kuub waxaana la filayaa in sidoo kale mashruucan oo ceel walba la socoto biyo-gelin 10 kilomitir oo light solar ay ka faa'iideysan doonaan oo laga fulin doono magaalooyinka Shinile Araarso Birqod iyo Dhanaan waxaana sidaasi bartiisa soo dhigay madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo mashruucaasi si faahfaahsan uga warbixiyay isla markaasina sheegay in shacabka deegaanku ay ka faa'iideysan doonaan degmooyinkaasi kala duwan ay heli doonaan biyo waafiya waxaana uu sheegay in heshiiskaasina uu ka dhacay maanta oo magaalada Jigjiga lagu kala seexday waana tallaabo wanaagsan oo laga bixi doono baahidii dhinaca biyaha
dhinaca kale biyo xidheenka weyn ee Itoobiya ayaa dadaal xoogan ugu jirta u diyaargalowga sidii xadhiga looga jari lahaa taasoo shacabka deegaanka Soomaaliduna ay si habsami leh uga qayb qaateen gudaha khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudana intaas ayaan ku soo afmeerinaa warbixinteennii koobneed haddaad nagu cusubtay fadlan like iyo subscribe naga ilmaamin haddaad la joogteen waad ku maasantay la joogisteena tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah